duur wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegaysatay waa khamiis 10 May saacadda Afrikada barina waxay tilmaamaysaa labadii oo buura wararkan idaacadan duhurnimo idinku hayana waxa kamid ah Israa'iil oo sheegtay in Iiraan kula dagaalamayso Suuriya gudaheeda warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya ciidamo gaar oo hawlgal xalay ka fuliyay bari ray afkooya dhexdooda iyo maxkamadda sare dawladda Puntland waxay jabisay xukunkii maxkamadda darajada koowaad xukunka maxkamaddu wuxuu noqonayaa sidan soo socota maxkamaddu waxay sii daysay ganaaxa iyo xabsigii eebka dhammaan ka jabisay xukumayaasha ka kooban 17 xukumane waa kalluumaysato Iiraaniyiin oo maxkamadda sare Puntland xukunkii lagu riday ka cafisay biyo xidhan dume oo Kenya dad ku laayay wararkii ciyaaruhuna meesha kama maqna soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xajaan oo Axmed Nagaashiina waan idin la socodsiinayaa duhur wanaagsan saaxiibayaal waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Axmed Badar Axmed maasanid Axmed Nagaashe madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka ku soo dhaweeyay 3 qof oo u dhalatay Mareykanka oo arbacadii xabsiga ay ka sii daasay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi saddexdan nin ayaa la sii daayay isla markaana dalkooda loo soo dooliyay kadib booqasho xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku tagay Kuuriyada Waqooyi aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in saddexdan qof la sii daayay ayna tahay calaamad muujinaysa wanaag ka hor kulanka lagu wado inuu dhaxmaro Mr Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in hadafkiisa ugu weyn uu yahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nuclear-ka dawladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay duqeysay ku dhawaad dhammaan bartilmaameedyada ay Iiraan ku leedahay Suuriya kadib markii madaafiic lagu soo riday saldhigyo ay Israa'iil ku leedahay buuraleyda Golan Heights weerarka ayaa la sheegay in lala beegsaday bartilmaameedyo goobo hubka lagu keydiyo iyo xarumo dhanka sirdoonka Faransiiska iyo Ruushka ayaa waxa ay ku baaqeen in la dejiyo xiisadda labada dhinac u dhaxaysa boqorka dalka Malaysia ayaa kulan la yeelanaya musharaxii ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday arbacadii iyadoo ay jirto warar la isla dhaxmaraya oo sheegaya in la dhisayo dawlad cusub xisbiga Mahathir Mohamad ayaa doorashada kaga adkaaday isbahaysiga haya talada dalkaasi waxa uu xisbiga noqonaya xisbiga ugu weyn dalkaasi hase yeeshee ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degaya ayaa sheegaya in xisbina uusan ku guuleysan aqlabiyadii loo baahnaa Mahathir Mohamad oo 92 jir ayaa siyaasadda dib ugu soo laabtay si uu la tartamo ninkii uu siyaasadda ku soo barbaariyay ee ah imika ra'iisul wasaaraha Najib Razak waxaa dalka Kenya ka socda howlo gurmad lagu samata bixinayo halkaasi halkaasi oo biyo xireen uu qararka jabsaday kadib roobab mihigaana oo dalkaasi ka daay ayna ku dhinteen ugu yaraan 20 qof 5 qof ayaa la yahay meel jaan iyo cirib ay dhigeen halka boqolaal kale ay ku guriya beeleen dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka Solai oo ku taala waqooyi galbeed ee Nairobi ugu dambeynna waxaa la amray in baaritaano lagu sameeyo guuldarrooyin la sheegay in hawsheedu ay ku fashilmeen laamaha ammaanka iyo sirdoonka Pakistan taasi oo horseeday weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda dalkaasi ee ay geystaan kooxaha mitidiinta in ka badan 100 qof ayaa lagu dilay kadib markii ay kooxda Taliban ay soo weerareen iskuul ay maamulaan ciidamada dalkaasi weerarka ayaa ka dhacay magaalada Peshawar 4 sano ka hor warkii dunida ayaa intaasi naga dhanaan dib idinku celiya Axmed Nagaashe iyo barnaamijka duhurnimo mahadsanid Axmed waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay sidaad warkaba ku maqlayseen Israa'iil ayaa sheegtay inay duqeysay ku dhawaad dhammaan fadhiisimadii ay Iiraan ku lahayd dalka Suuriya gudihiisa kadib markii madaafiic ay kaga soo ganeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan sida ay sheegtay Israa'iil goobahaas oo ay ku rideen buuraleyda Golan weerarka ayaa la sheegay in lala beegsaday goobo hubka lagu kaydiyo iyo xarun fadhiisin oo sirdoonka waa sida ay sheegtay Israa'iil Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta inoo haya Israa'iil waxay sheegtay inay jawaab ka bixiyeen ilaa 20 sayruuq oo ay ciidamada kacaanka ee Iiraan ay ku soo jeediyeen goobaha milatariga Israa'iil ee buraha Golan Heights waxa ayna sheegeen inay beegsadeen meelo badan oo ay ku sugan yihiin ciidamada Iiraan oo ay ka mid yihiin bakhaaro hubka lagu kaydiyo goobaha gantaalada laga gano iyo meelaha lagu hayo qalabka sirdoonka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa xaqiijiyay inay ciidamadiisu baabiyeen badiba awooddii Iiraan ay ku lahayd dalkaasi Suuriya
isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dabcan waxaynu garaacnay kaabayaal dhammaantood ma ahayn laakiin inta badan waxay ahaayeen kaabayaal iiraan ay ku leedahay suuriya waa inay xasuustaan halkudhiggii ahaa haddii uu halkan roob ka da'o halkaasina biyuhu waa ay gaarayaan waxaan rajaynayaa in aanu dhammaystirnay cutubkan oo cid kasta ahi ay fariintaasi heshay ruushka iyo faransiiska ayaa ugu baaqay inay iiraan iyo suuriya xiisadda dejiyaan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa la filayaa maanta gelinka dambe inay ka wada xaajoodaan xaaladaasi kasii daraysa dhinaca kale waxaa iyaguna khalkhal abuuray kadib markii uu maraykanku ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee dowladaha quwadda lihi ay la galeen iiraan arrintan ayaana saameyn ku yeelanaysa xiisad cusub oo hor leh oo laga cabsi qaba inay ka aloosanto bariga dhexe oo iminkaba la daaladhacaya dagaalo sokeeyey iyo isfaham waa siyaasadeed oo aad u baahsan aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixinta inala socodsiinayey waa tahay dhegaystayaal bal haatana xagga iyo soomaaliya ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay 4 kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidamo gaar ahi ay howlgal ka fuliyeen deegaanka macalinka oo u dhexeeya bariire iyo afgooye xalay saqdi dhexe warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya haddaba cidda ay ahaayeen dadka dhintay iyo ciidanka weerarka fuliyey labaduba haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno waxaan goordhoweyd khadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula hadlay wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo aan faahfaahin dheeraada weydiiyey axmed xalay saqdi dhexe ayaa ciidamaha gaara oo wata diyaarado dagaal oo nooca qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaano waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka la yidhaahdo macalinka u dhexeeya bariire iyo afgooye rasaas xoog leh ayay dadka deegaanku maqleen ugu yaraan 5 qof ayaa howlgalkaasi lagu dilay 4 kalena waa lagu dhaawacay dadka deegaanku waxay leeyihiin dhammaan dadka la dilay waxay ahaayeen rayid sidoo kale waxaa maqan ilaa 3 qof oo aagaasi joogay dadka deegaanku waxay leeyihiin ciidamadii howlgalka fuliyey ayaa horey usii kaxaystay wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo b b c da la hadlay ayaa sheegay in dhimashadu ay 5 gaarayso dhaawacuna uu 4 yahay laakiin ay baaritaan ku hayaan cidda ay ahaayeen dadka dhintay wuxuu sheegay in howlgalka ay fuliyeen ciidamo soomaali ah islamarkaana bartilmaameedka uu ahaa al-shabaab balse ay baarayaan wararka sheegaya in dadka dhintay ay ahaayeen rayid ibraahim maya targetka dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada amisom kuwa soomaaliyeed oo isgarabsanaya intaba ma aha inay shacabka soomaaliyeed dhibaateeyaan oo dhibaato gaarsiiyaan targetku waa in lala dagaalamo shabaab iyo ururada nabaddiidka ee guud ahaanba soomaaliya dhibaatada ku hayo hase yeeshee dadka meesha ku dhintay ilaa hadda kulley un ciidamada iyo dadka deegaanka joogay maamulka gobolka shabeellada hoose intuba baaritaan bay wadaan laakiin ma xaqiijin karayno cidda dhimatay ilaa hadda inay tahay shacab hase yeeshee waxaan odhan karnaa in ciidamada soomaaliyeed ay weerar qaadeen weerarkaasna targetku uu ahaa in goobtaas ama beertaas lagu magacaabo macalinka deegaanka lagu magacaabo beerta weyn oo ku taallo ee ay lahaayeen ciidamada booliiska soomaaliyeed oo caan ahayd in ay nimanka halka isku aruursanayeen waxaan xaqiijin karnaa waxa weye inuu weerarkaas dhacay dhimashana ay jirto dhaawacna uu jira ibraahim kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo b b c da la hadlayey axmed waxaa wararku hadda igu soo gaarayaan in meydadka dadkaasi loo soo qaaday magaalada muqdisho wararka qaar waxay leeyihiin dadka deegaanka dadkan waxay geyn doonaan xarunta dambisbaarista c i d da kadibna isbitaalka ayaa qaybta meydka lagu kaydin doonaa laakiin warkaasi ilaa hadda maanan xaqiijin laakiin waxa ay ehelada dadkaasi noo sheegeen in dadkaasi la keeni doona meydadkooda muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo faahfaahinta ina siinayay b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee b b c da saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 2:09 bal haatana xaggan iyo kenya ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay kenya kadib markii roobab laxaadle oo da-ay daadadkii ay soo rogeen ay dumiyeen biyo xidheen dalkaas ku yaala saraakiil ka tirsan laanqeyrta cas ee kenya ayaa sheegay in ilaa haatan raq iyo ruux lalayahay 5 qof 40 kalena lasoo samata bixiyey howlaha gurmadku weli waxay ka socdaan goobtaas oo la yidhaahdo solai oo 200 oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xigta xarunta nairobi xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada nakuru
oo la yidhaahdo Peter Mbaye ayaa sheegay in laga cabsi qabo in tirada dadka dhintay ay korodho. Kuna watu zaidi ya 50 ambao wamepelekwa. In ka badan 50 qof ayuu dhaawac soo gaaray waxaana loo qaaday isbitaalka Subukia. Waxaan sidoo kale ka walaacsanahay dadka deegaanka ee aan warkooda haynin. Waxaan ka cabsi qabnaa in dadka qaar ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa, gaar ahaan dadkii ku sugnaa deegaanada ku yaala dhulka joogiisa uu hooseeyo. Wanahofiwa wamezikwa na maji, haswa upande wa nyanda za chini. waxaa kaloo ay wararku sheegayaan qiyaastii 500 oo guri aynay halkaa daadadkii ka soo rogmaday biyo xidheenka dumay ay qaadeen, sidoo kalena ay baabiyeen beero badkooda lagu qiyaasay 2 kilomitir. kumanaan qof ayaa haatan barakacay oo aan hoy haysanin ayaa wararku sheegayaan mashaqada halkaasi ka dhacday. waa tahay dhegaystayaal, bal haatanna xagga iyo magaalada Boosaaso. maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta fasaxday 17 badmaax oo Iiraaniyiina, kuwaasoo xeebaha Puntland muddo hore laga soo qabtay oo lagu soo eedeeyey in ay si sharci darraa uga kalluumaysanayeen xeebahaasi. wariyaha BBC-da Axmed Cawil Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garowe. 17 badmaax oo u dhashay waddanka Iiraan ayna horay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari xukun ugu riday ayaa maanta maxkamadda sare ee Puntland ay xukuntay in xabsiga laga sii daayo kadib markii ay jabisay xukunna hore loo riday. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Nuux Ciise ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyey eedeynta lagu maxkamadeeyey xukumanayaashani. maxkamaddu waxay u furiisatay dhagaysiga dacwada xukumanayaasha hortaagan maxkamadda sare dowladda Puntland iyo qaadista galdacwadeedka ku saabsan doontii Iiraaniyiinta oo taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 10aad lagu soo qabtay xeebaha Puntland iyadoo ka kalluumaysanaysa lagu soo qabtay xeebaha Puntland wax ruqsaan ah ayaan haysan. maxkamaddu sidoo kale waxa ay burisay xukumo ay horey u rideen maxkamadaha darajada koowaad iyo rafcaanka ee gobolka Bari soona baxay 3 bishii 2 ee 2018. marka ugu horeysa maxkamadda sare dowladda Puntland waxay jabisay xukunkii maxkamadda rafcaanka gobolka Bari tirsigiisu ahaa eber 3 2018 soona baxay 3 bishii 2 2018. maxkamaddu waxay wax ka bedeshay xukunkii maxkamadda darajada koowaad tirsigiisu ahaa 95 2017 kuna taariikhaysnaa 12 bishii 10aad 2017. xukunka maxkamaddu wuxuu noqonayaa sidan soo socota. maxkamaddu waxay sii daysay ganaaxa iyo xabsigii eebka dhammaan ka jabisay xukumanayaasha ka kooban 17 xukumane. howlgalkani lagu soo qabtay badmaaxiyiintani ayaa waxaa ku dhintay kabtankii waday doontaasi, waxaana maxkamadda sare ee Puntland ay diyada kabtanka ay ku xukuntay mulkiilaha shirkadda kalluumaysi. sidoo kalena waxaa Puntland loo xukumay doontii ay wateen badmaaxiyiintani oo u dhashay dalka Iiraan. sidoo kale maxkamadda sare dowladda Puntland waxay u xukuntay doontii Al-Saciidiya dowladda Puntland maadaama ay ku kalluumaysanaysay si sharci darraa wax ruqsa ayaan haysan. kuwa dhammaan ka kalluumaysan doonana sidaas maxkamadaha ay hay'adaha garsoorka diyaar ugu yihiin in dowladda lagu wareejiyo iyadoo qodobada sharciga xukunku uu ku soo bixi doono. dhimashada kabtanka doonta ninkaas oo dhintay Allah u naxariisto waxa la sheegay in sunnah ahaa waxa lagu xukumay mulkiilaha doonta shirkadda doonta ay soo dirsatay oo mulkiilaha uu ka yahay Caarif Barasadanti Sabiil. codkaasina wuxuu dambeeyay warbixintii Axmed Cawil ka soo diray magaalada Garowe. haddaba dhegaystayaasha BBC-da qaar ka mid ah ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay, waxaana ka mid ah Maxamed Cawil Axmed oo jooga magaalada Boosaaso. waxa uu leeyahay maxkamadda Boosaaso ee sii daysay maxaabiista Iiraaniyiinta waan soo dhaweynayaa, runtiina waa arrin bogaadin mudan tallaabada maxkamaddu qaaday, waayo maxaabiista Iiraaniyiintu waxay la tahay in awalba khalad loo soo xidhay oo waxa lagu eedeeyey inay jiriif ku hayeen badaha, waxaana loo baahan yahay in dowladda Puntland xadhigga ay kula kacayso ajaanibta ay qadariso in meesha laga saaro haddii aan caddaymo ku filan loo soo bandhigin, ayuu yidhi Maxamed Cawil. cali maxamed diiriye oo isna jooga magaalada Xingalool ayaa waxauu leeyahay xeebaha Puntland waxaa ka jira dhibta ugu xun Soomaaliya. ganacsato u dhalatay dalka ayaa waxay ganacsi ka dhigteen inay doonyo shisheeye keenaan xeebaha Puntland oo xaaluf ba'an ku haya. waxaa kaloo jirta buu yidhi maraakiibta gaashaanbuurta neeto ayaguna inay jiriif weyn ku hayaan laakiin aan cidi dhaadanayn.
ceello uma qodna cidina uma maqna ayuu yidhi shacabka puntland waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da waa tahay bal haatanna xagga ayay hargeysaa boqor cismaan maxamuud oo loo yaqaano buurmadow oo hore maxkamadda gobolka maroodijeex ugu xukuntay xabsi 5 sannadooda ayaa maanta la horgeeyey maxkamadda racfaanka oo uu u gudbistay dacwad racfaan oo uu ka qaadanayo xukunkii hore ugu dhacay wariyaha b b c da axmed siciid xige ayaa warbixintan ka hordhoweyd magaalada hargeysa nooga soo diray dhegeysiga maxkamadda ayaa bilaabatay abbaara 9:45 iyada oo albaabadana garsooruhu uu furay dadweynaha iyo saxaafadaba ciddii doonaysa dhegeysato boqor buurmadow oo 26 abriil ay maxkamadda gobolka hargeysa ku riday xukun 5 sano oo xadhig ah ayaa maxkamadda rafcaanka ee maanta waxaa difaacayay 3 qareen waxa ay ku doodeen in boqorka aan loo ogolaanin in uu istifaaco oo uu qareeno qabsado maxkamaddii 26 abriil lagu riday hase yeeshee laba xeer ilaaliya oo iyaguna ku soo oogayay eedaynta boqor cismaan aw maxamuud buurmadow waxa ay ku doodayeen in boqorku hadal ka jeediyey deegaanka carmo ee puntland oo kaga qayb galay munaasabad dhaqameed taasi oo ku wiiqay bay yidhahdeen hadalkiisaasi madax banaanida somaliland kuna dhaleeceeyay bay yidhahdeen ciidamada somaliland kana beer abuuray madaxweynaha waxay kaloo ku doodeen in qareen loo ogolaa ee isagu aanu markaasi yidhi aniga istifaacaya eedayntaasi waxa ay qareenada difaacayay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ay ku tilmaameen mid aanay waxba ka jirin oo qareenkana loo diiday isla mar ahaantaasina maxkamadduna ay dhinac keliya garsooraha maxkamadda rafcaanka cabdi axmed xasan ayaa si degan u hagaayay kiiska dhegeysiga rafcaanka maanta ka socday oo muddo 2 saac iyo badh qaatay dhegeysiga dacwadda rafcaanka ee boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ee maxkamadda rafcaanka ee hargeysa ka bilaabatay maanta waxaa loo mudeeyey maalinta sabtida ah mar kale in la dhegeysto 12 bisha May 2018 qareenka difaacayay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo ah barkhad jaamac aare ayaa b b c da u sheegay kadib markii laga soo dareeray dhegeysiga maxkamadda in ay ku qanacsan yihiin sida ilaa iyo haatan uu u socdo dhegeysiga rafcaanka ee boqor cismaan aw maxamuud buurmadow axmed siciid cige b b c hargeysa waa mahadsan yahay axmed siciid oo warbixinta magaalada hargeysa inooga soo diray bal dhegeystayaal haatanna wararkii cayaaraha ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee reer ivory coast yaya ture ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono kooxda uu ku biiri doono laakiin waxa uu meesha ka saaray inuu tegayo shiinaha iyo bariga dhexe midkoodna ture ayaa ciyaartii u dambeysay oo u saftay kooxda manchester ciyaaray habeenkii arbacadii waxaana uu kooxda u ciyaarayay muddo 8 sannadooda ture ayaa waxa uu ku guuleystay 4 goor inuu noqdo ciyaaryahanka sanadka ee qaaradda Afrika isagoo warfidiyeenka la hadlayna waxa uu sheegay in aanay fikradiisa kuba jirin in uu tago xagga iyo dalka Shiinaha oo uu kaga qayb galo horyaalka Shiinaha tababaraha kooxda Huddersfield ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay tahay wax lagu diirsado in kooxdiisu ay ku guuleysatay in aanay ka hadhin tartanka horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka dambe waxaanu hadalkaa sheegay markii ay xalay kooxdiisu barbaro ku kala baxeen Chelsea oo ay sidaa ku heshay kooxdiisu dhibicdii keli ahayd ee u baahnayd ee ay kaga badbaadisay in lagu celiyo heerka labaad ee kooxaha Ingiriiska hadalhaynta kale ee wararka ciyaarahana waxaa ka mid ah dhegeystayaal in weeraryahanka reer Brazil ee u ciyaara kooxda Paris Saint-Germain waa Neymar uu kulan qarsoodi ah la yeeshay saraakiil ka tirsan kooxda Real Madrid bishii March waxaana wararku intaa ku dareen inuu aad u danaynayo inuu kooxdaasi ka tago waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantii af Soomaaliga ee BBC da bal haatanna Faarax Lamaane ayaa stuudiyaha ila fadhiyo waxa uu inoo hayaa warbixin xiiso leh oo ku saabsan arday jaamacadeed oo looga joojiyey waxbarashadoodii anshax xumo ay ku faafiyeen Facebook oo la leeyahay waa kaftan ay si qaldan u fahmeen faaraxu maxaa la leeyahay axmed oo sheekadan horta intaanan u gelin Soomaalida arinta kufsiga la yiraahdo waa iska fududeystaan waxa arkaysaa de kufsi inta gabar loo geystay haddana lacag la kala qaadanayo oo laga xaalayo halkan waxa yaala xitaa haddii lagu kaftamo in kiis laga dhigayo ardayda jaamacadda Warwick qaar ka mid ah ilaa iyo 11 ardaydaas ka mid ah waa jaamacad ku taala wadanka Ingiriiska ayaa kaftan ku sameeyay kufsiga
facebook ay lahaayeen marka iyagoo iska qorayuun bay idhaahdeen waa waxbaa kufsan kara ha la kufsado gabdhaha ilaa 100 gabdhood ha la kufsado waxyaabo noocaas marka waxaa laga qaaday screenshot waxyaabaha masawirada telefoonada lagu qaado cadeymihii ayaa la keenay jaamacadda marka waxa ay ka joojisay ardaydii waxbarashada ay ka joojisay waxaana loo diray anshax marin ayaa loo diray arrintii meel xun ayay gaartay hadda waxaa la leeyahay ardaydaas kiiskooda waa in la dhageystay jaamacadda in laga joojiyo iyo in lagu sii socdo marka waxaan la yaabay oo arrintaas maskaxdeeda markaan ka shaqaysay ugu soo dhacday sida Soomaalidana ay u fududeystaan adduunyada kalena in la soo qaadaba halkay arrinta ka taagan tahay waa kalamaan iyo sida loo kala dhaqana duwan yahay Faaraxo waa tahay dhageystayaal bal haatana baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Siciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxa ay naga soo gaartay Ardo Muuse Bilaal oo joogta Burco waxa ay baafinaysaa Shukri Cali Saciid waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso Shukri Cali Saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Ardo Muuse Bilaal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco Bashiir Aw Xasan Magan oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa ayaan la Bashiir Aw Xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2017 haddaba haddii uu maqlaya ayaan la Bashiir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Bashiir Aw Xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Cumar Cabdi Xuseen oo jooga Zeylac waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2008 haddaba haddii uu maqlayo Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cumar Cabdi Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeylac Arab Cabdulaahi Tukaale oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Cabdulaahi Arab waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2017 haddaba haddii uu maqlayo Cabdulaahi Arab ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Arab Cabdulaahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Axmed Cali Suldaan oo jooga Zeylac waxa uu baafinayaa Faadumo Cali Suldaan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Cali Suldaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Axmed Cali Suldaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeylac Saciid Xareed Rooble oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Abuukar Saciid Xareed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2017 haddaba haddii uu maqlayo Abuukar Saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Saciid Xareed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo jooga Zeylac waxa uu baafinayaa Xabiiba Cumar Saciid waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2010 haddaba haddii ayna maqlayso Xabiiba Cumar Saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdiraxmaan Cali Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeylac Muuse Saciid Cusmaan oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Qadar Muuse Saciid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2016 haddaba haddii uu maqlayo Qadar Muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muuse Saciid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama maxamed faarax fataax oo jooga Zeylac waxa uu baafinayaa Nimco Faarax Fataax waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso Nimco Faarax Fataax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed faarax fataax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeylac Maryan Cabdi Daahir oo joogta Boorama waxay baafinaysaa Muuse Axmed Daahir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2012 haddaba haddii uu maqlayo Muuse Axmed Daahir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maryan Cabdi Daahir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama Timiro Ogle Jaamac oo joogta Berbera waxay baafinaysaa Cabdikariim Axmed Xirsi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Jarmalka sanadii 2016 haddaba haddii uu maqlayo Cabdikariim Axmed Xirsi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Timiro Ogle Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Berbera amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526444453 Luul Jaamac Deena oo joogto Boorama waxay baafinaysaa
maxamuud jaamac waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud jaamac amaba jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo luul jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. hindiyo nuur cumar oo joogta burco waxa ay baafinaysaa ruqyo nuur cumar waxaa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso ruqyo nuur cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hindiyo nuur cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. jibriil daahir muumin oo jooga boorama waxa uu baafinayaa mahadi daahir muumin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2010 haddaba haddii uuna maqlayo mahadi daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo jibriil daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. jamaad yuusuf cumar oo joogta burco waxa ay baafinaysaa hodan yuusuf cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso hodan yuusuf cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo jamaad yuusuf cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. qadro ibraahim cali oo joogta boorama waxay baafinaysaa nuuro ibraahim cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka turkiga 2009 haddaba haddii ayna maqlayso nuuro ibraahim cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadro ibraahim cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. cabdulaahi aadan cabdi waxa uu baafinayaa maxamed aadan cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ethoobiya sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed aadan cabdulaahi amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi aadan cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zaylac. ayaan daahir ducaale oo joogta boorama waxay baafinaysaa faadumo daahir ducaale waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka sacuudiga 2008 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo daahir ducaale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ayaan daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. axmed xuseen cige oo jooga zaylac waxa uu baafinayaa xuseen cige bahdoon waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada sanca ee dalka yemen sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo xuseen cige bahdoon amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axmed xuseen cige iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zaylac. xasan cabdiqani xamuud oo jooga badhan waxa uu baafinayaa xuseen cabdiqani xamuud waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan cabdiqani iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay badhan. bade xuseen qaalib oo jooga zaylac waxa uu baafinayaa eliyaas cabdiraxmaan yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlay eliyaas cabdiraxmaan yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bade xuseen qaalib iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zaylac. ibraahim saciid aadan oo jooga laasqore waxa uu baafinayaa maxamed saciid aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ibraahim saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay laasqore ama taleefanka lambarkiisa uu yahay 2529 maxamed xirsi axmed oo jooga zaylac waxa uu baafinayaa aamine xuseen faarax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso aamine xuseen faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed xirsi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zaylac. mustafa guuleed maxamed oo jooga badhan waxa uu baafinayaa mukhtaar guuleed maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar guuleed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo mustafa guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay badhan. cabdiraxmaan cabdi cilmi oo jooga zaylac waxa uu baafinayaa maryan cabdulaahi cilmi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ethoobiya sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso maryan cabdulaahi cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zaylac. saalax maxamuud maxamed oo jooga badhan waxa uu baafinayaa yacquub maxamuud maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo yacquub amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yacquub maxamuud maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay badhan.
baafinta ugu dambeysa maanta waxaa inaga soo gaartay maxamed cabdulaahi caraale oo jooga zeylac. waxa uu baafinayaa cali cabdulaahi caraale waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yeman sanadii 2015. haddaba haddii uuna maqlayo cali cabdulaahi caraale amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdulaahi caraale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. baafintina maanta waa naga intaa. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin asxaabta aynala socodsiinaya barnaamijkii baafinta isagaana ugu dambeeyey dhegaystayaal oonu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo waxaynoo ballanaa haddii allaha awoodda lihi aynu hawada ku kulmi doonaa 5 galabnimo markay saacadda afrikada bari tahay inta ka horaysase waa dhammaantay oo dhammaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo.